عبد الرحمن أبتيان أفردقودك يقاق لياشة أن مستقبلك السياسي اللهين إن عيب كقف كدورتي دلك يخلق الكيسة كدورتي يكو خارن كوفري ما يعني قدومي هو دقمة برعو محمد يوسف عبد الرحمن مراد oo si gaar ah ula hadlay telefishinka caalamiga CBA TV ayaa waxa uu ka hadlay arrimo dhowr ah oo ay ugu horeyso hadal habeennimadii xalay ka soo yeedhay murashaxa madaxweyne ee xisbiga mucaaradka ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro mayrkii hore oo arrimahaasi faahfaahinaya ayaa waxa uu yiri hadda dhinacayga bidix wax fadhiya gudoomiyaha hore degmada Burco Maxamed Yuusuf Cabdiraxmaan Muraad ee ku soo dhaw telefishinka caalamiga CBA وريا أيام المركز روض من أحسنت هذه صاحب كوا أيوه تي في كان سي بي ساك هذه لهي كدقو بشي مي أفريتو بنكي دي لبضة كونيو لبيه لواتنك هالكم بروح عنك جهل لدونا لبا قضب وأيلم موقتين وحلقي يداخدو ما دام اللبض بقى يتعبنا يعني لنا الرماها بالشد يولي بأمني waxaan daawanayay gudoomiyaha xisbiga wadani Cabdiraxmaan Cirro oo u hadlayay si aan looga baran waxay la muuqataa markaan kelmad kan yiraahdo aqli celin iyo tusaaleyn Cabdiraxmaan waa nin looga bartay had iyo jeer hadallada aan inta badan xanafta lahayn marmar qofka bini aadamka waxa ka yar dhici karay laakiin waxa looga bartay hadallo aan xanaf lahayn arrinka laakiin shalay ka soo yeedhay waxaan isleeyahay waa arrin dheeraada oo dhaqankii Dr. Cabdiraxmaan ka mid ahay barigii deeleyda ilaahay u naxariistay ninkii la oran jiray Abwaan Gaariye oo bilaabay ayaa nin abwaanadii waqtigaas Soomaalida ka mid ah oo aan jeclayn magaciisa inaan sheego oo halkii markaa laga filayay meel aan ahayn ka soo baxay ninka tiriyay heesta la yiraahdo hoy Afrika ay hurudoy adow ku heeriyay hurudoy oo markaa qiimihiisu halkaas u marayay inuu Afrika oo dhan xilligii gumeystaa u hadlo maalintii dambe ayaa deeleydu bilaabantay dabeedna wuxuu ka soo muuqday oo deeleydiisii laga dhadhansaday mansabka mid ka hooseeya aad uga hooseeya waa laga dhadhansaday markaas baa deeleydii la soo celinayay waxa ku jirtay kelmado isaga lagu markaa lagu toosinayo waxa ka mid ah abwaankii dalka idil dibadda uga baxay Afrikaba u doodow deeleydu waa shaxi Sacuudiga cidlada degay taasi waxay keensatay abwaankaasi raggii ay hayeen deeleyda ku wada jireen Hadraawi iyo Gaariye iyo Dheeg iyo raggii la midka ah inaan isba gaadhin ay hablihii hobalada waa bari ku jiray ay farantu iyaga ka bilaabanto oo hablihii hobalada waa bari ee heesi jiray uu la grade noqdo waxaan uga socdaa halka Cabdiraxmaan kama naafilin buu ka hadlay Cabdiraxmaan oo haddaan ku yar tusaaleeyo doorashana waa doonaysaa dalka iyo dadkana waxbaad ka rabtaa inaad madax u noqoto aad doonaysaa midad shalay ka hadlaysayna waxay ahayd dhiriq iyo reero kala rarbe mishiinada hadhow aanad bakhtiin karaynin ama dadka hadhowto aanad joojin karaynin inaad kicisa nafku ma laha waayo waxaad ku qoos qaadataa maalintii hore ee doorashadii aad gashay aad tartantay ee aanad ku guuleysanin kalimaad baa Ilaahay ka keenay kalimaadkii Ilaahay ka keenay waxay noqotay in khasaare badan oo naf iyo maal bale oo dalka soo gaadho maalinta doorashadun baad wax ka sheegtay oo aad ku sheegtay inaanay sax ahayn laakiin maanta dagaal bad cilaamis maxaad filaysaa marka aad raggaad siiriga u tumayso ama dhalinyarada aad kicinayso miyaad joojin karaysaa hadhowto waxay la muuqataa midkaasi qaranka iyo shakhsiyadaada baynu wax yeelayo waxay la muuqataa dad badan oo ku han weyn oo maanta ku dooran lahaa inay dib kaaga joogsadeen markay arkeen halka aad ka soo baxday
waxay ila muuqataa arrinkaa inaad garow ka bixiso waxaad dib ugu noqotaa madaxweynayaashii kaa horreeyey siilaanyo 80 cod baa lagaaga helay baa lagu yidhi iyadoo aynu isla wada ognahay inaan waxba laga helin maalintaaba rag kardhanaya oo damacsan inay dagaalamaan hareerihiisay joogin laakiin dulqaadkiisa iyo raganimadiisa iyo odaytinimadiisay ku baxsatay Soomaaliland kelmad dhaxalgalana waa laga hayaa kursiga Soomaaliland u rugman mayso abti markaasi markuugu munaasaba mu ahay xaalii apologies inaad ka bixisan xaq baa lagu leeyahay xataa mar laba hadii aad tartanto aad guuleysan weydo kursigaaga Soomaaliland inay waxyeelo dambe aad gaarsiiso oo kursigaaga helitaankiisa iyo weeyitaankiisa Soomaaliland uu dib u galaafto sax kuguma nin weyn baa tahay maanta da'da aad joogto waa da'dii nabadda lagu talin jiray mansabka aad ku socotaa waa mansab nabadgeliyo korneyl ciidamo guuto wata ma tihid ragga hareerahaaga jooga ee kelmadaha caynkaasa ku raaxaysanaya waa nimaan kuu furaynin iyo kuu rarin fardan wa taqdiiran haddii aad ku guulaysato madaxtinimada oo kelmadahan xanafta leh iyo dagaal oogistan iyadoo ay kuu hormareen aad ku guulaysato hadhow maxaa ku yaala ragga hareerahaaga tubani intay ku xambaaraan dadkan ma kula dhex mari karaya isaaq runta waa nacibi halkaa intay ku mariyaan galbeed ma ku geyn karaya bari ma kuu soo kaxayn karaya may su-aasha wacanka dalku wuxuu u baahan yahay cid kastoo madaxtooyada u socotaa inay ku gaadho si nabadgelyo ah haddaad qas iyo quubaaqas iyo dagaal iyo rabshad ninka ku gaadha isagana waa lagu bilaabay waayo qof ka xoog rooni ma jiro qof qabsan karayaana ma jiro nabadgelyo ayuu madax ku heli karaysa miir waxa ku weydaan iswaal kuma mihiibtaan nabadgelyo waxa ku helaysa hadalkayga waxaan kugu soo gaabinaya cabdiraxmaanow abtiyaan afardhagoodka iyo qaaqlayaasha aan mustaqbalka siyaasadeed lahayn ee nacaybka qof ka doortay dalka iyo khalkhalkiisa ka doortay yay kuu rarin kuu furi maayaani sidii odaynimada ahayd lagugu yaqaan sidii cadaaladda u dhoweyd ee aad dadka ugu dhexaysay sidii ugu dhexay baan ka odhan lahaa dantaadaa ku jirta danta qarankuna way ku jirta amba waxaan isleeyahay malaa kelmadaha cadho iyo maxaad markaa u odhan weyday iyo canaan badan lagu canaantay nin qabow baa tahay waxba iska celin maysid ayuunbaa kaa keenaye xalay markaad dib isu fiirisay iyo shalay iyo markaad dib isu dhegaysatay waxaan isleeyahay in aad adiga laftigaa ka garaabayso oo aanay da'daada maanta aad joogtay iyo mansabka aad ku socoto iyo inta sannadood Soomaaliland aad soo xukumaysay baarlamaanka markaad eegto inaad dib isu qancisay shalay iyo xalay midkaas inaan ku habboonayn siidhi baan afuufayaa diyaar garooba kordhintaa timi cabdiraxmaan waabti 5 sano lagu doortay 10 sano ayaa marba sidii lagugu kordhinayay oo lagugu sii kordhinayay 15 sanaad golaa ku gaadhay weli lama oran siidhi baa la afuufaya ama ninkan meesha ka soo saara laguma oran siilaan yaa loo kordhiyay ninka la yiraahdo muxuu ahaayay ilaahay raaliha ka noqday madaxweynihii wanaagsanaaye lagu baxsaday isagana maalintii adkeed lagu baxsaday daahir riyaale kaahin ayaa isagana loo kordhiyay bal daahir riyaale kaahin maalintii ay ka dhamaatay ee xilka uu wareejinayay rag badan oo isaaqa dadku iskuma jiree ayaa waxay diyaar u ahaayeen dagaalamaan waynu dagaalamayna bay ku yiraahdeen kelmad dhaxal gale buu ka tagay riyaale oo nin kasta oo culaad u qabay uu ku ilaaway wuxuu yiri talo xumo xaqayga ka timi Soomaaliland ku burburmayso abti cabdiraxmaanow talo xumo ka timi yani Soomaaliland ku burbur maanta hadii 10 November la gaadho oo Muuse bixi loo kordhiyo waa lagu kordhin jiray riyaala loog ninka ugu kordhinta badan Soomaaliland baday 10 years ayaad ku fadhiday kordhin riyaala loo kordhiyay wuxuu haayay siilaanya loo kordhiyay ilaahay caafimaad siiyo suurta la afuufi maayo oo idinka yidhi in adeerkay waa xirsi
ninkii yidhi suurta la afuufi maayo annaguna maanta waxaan ku leenahay war 13 November waxay u egtahay in madaxweyne muuse loo kordhinaye haddii loo kordhiyo suurta la afuufi maayo Soomaaliland sidaas ay aanis markaa intaasaan kaga tegay Cabdiraxmaan maxamed muraad oo hadalkiisa sii wata ayaa sidoo kale waxa uu fariin adag u diray madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi dawladda madaxweynaha waxaan la madaxweyne hawlo badan baa kugu furan oo madaxweynaha qarankaas xisbiyada mucaaradka intay dul qaataan in boqolaabkeed leeyahay dul qaata baa laga doonayay meeshii aad qoonsataba inaad tiraado ka gungaar sax maaha adigoo arkaya wax badan laga ajooda nin baa yiri adigoo arkaya yaa wax badan laga ajooda wax badan inaad dhaafto isdiisiisa aday dan ku tahay qarankaad hogaaminaysay dan u tahay taariikhdaada iyo mustaqbalkaaga sii jiritaankaaga iyo haddii aad dhimato soo hadal qaadkaaga ay dan u tahay dadkaaga inaad u dul qaadato adiga oo madaxweynaha mucaarad baa ku caayaya mid dad kale ku caayaya waa lagu maagaya midaan xaq lagu lahayn baa lagu oranaya dul baa laga doonay nin weyn baa timaanta oo 80kii ku dhow 70 bari hore dhaaf waxaan ku labaynaya degmooyin baa bari dhaweey la ansixiyo labada gole waa ansixiyo 3 degmo waxay nabiga ku jireen degmooyinkii dib baa loo soo celiyay marka maanta la eego dalka iyo halku marayo buuqa ka taagan komishankii qaranka buuqa ka taagan xisbiyadii ururadii siyaasadda la furaya buuqa ka taagan 13 November doorasho haday dhici weydo aad maqlayso raggii waaweynay leeyihiin sidii baa la fuufay adigu mid dambe inaad ku kordhiso oo faran siyaasadeed oo dambe isku furtaa sax ma oo waliba meelihii codka aad ka eegaysi oo aad codka ka doonaysi ama taageerayaashaad u badnaayeen colaad cusub iyo faran cusub inaad ka samaysataa sax ma saddexda degmo taqriiban 26 mudana ka soo jeeda waad ogtahay ilaa shalay buuqa ka dhex taagnaa xildhibaanadii ka soo jeeday degmooyinka aad dib u soo celisay 26 mudane oo maanta isku mabda mucaaridii muxaafidba lama dhigi karaysi 26 isku mabda oo mucaaradkii kalena kuu dheer yahay ee golaha kuu fadhiyay anigu waxaan ku odhan lahaa faramaha siyaasadeed ee cusub iska laalaab saddexdaa degmana gacantooda u siida maaree adigii wasiirkaaga arrimaha guduhu saa u maareen lahaydeen laakiin golaha iminka haddii la soo dhigo oo si aad ugu soo celisay la soo dhigo qaanuuniyan waxay noqonaysaa si loo jabiyo mashruuc aad soo celisay 55 mudane in loo helo haddii 55 mudane loo helo lagu jabiyo magaxumo kaaga weyn ma jirto in madaxweynihii mashruuc uu soo celiyay haddana mar labaad laga jabiyay haddii aad ku adkaato oo mashruuca ku adkaato 55 xildhibaan ay xildhibaanadaasi u waayeen 26 xildhibaan oo isku mabda ah oo saddexda degmo ka soo jeeda ayaa kuugu biiraya soddoniyadii hore kale 60 nin oo mucaarado isku mabda ah kaaga ya wax ka badan 60 nin iyo wax ka badan oo isku mabda ah ayaa ku fariisanaya baarlamaan ku fariisanaya waxa la wax ku soconaya ma jira madaxweyne waxaan kugula talin lahaa faramaha yarayso dhowr jeer oo hore inagoo gaar wada hadlayna waxaan kugu yiri horta yaa kula taliya oo ficilada had iyo jeer iyo go'aamada aad qaadanayso madaxweyne yaa kaala taliya waan ku weydiiyey tiraba 2 jeer ama 3 jeer annagoo xabiib kuwa waan mucaarad kugu ahayn ereyada haddana aan isleenahay way qaloocan yihiin inaanu media ku soo marno taladooda xaq baan leen dalka xaq baa nagaga jira tacab baa nagaga jira nafyo maalba waa nagaga jira qas iyo buuq uma baahan qof kastoo reer Soomaaliland maanta qas iyo buuq ma baahan qaska siyaasadana ma naqaano afrikaanku ma yaqaano qaska siyaasadda gala qabiilooyinku ma u noqonay waadagu dawladda Cabdiraxmaan Tuur
maxamed kaahin ha la xidhay baa leeyihi markii siyaasaddii laysku yar qabtay wixii ka dhacay waad garanaysa kuwii ka dambeeyeyna waad garanaysa ma naqaano inagu qaska siyaasaddu inuu golayaasha siyaasadda ku ekaadee wuxuu tegayaa golayaasha reeraha iyo guryaha ayuu tegayaa markaasaa laba loo kala jabaya madaxweyne hadalkayga waxaan kuugu soo gebagabeynaya talada qaranka gacantaada ku jirta wixii aanad ka maarmayn dadka wax ku oolka ee aqoon-yahanada ee culimada ee odayaasha taladooda badso ummadda intaa leeg iyo qaranka intaa leeg baa ku berber taaganoo aad oday u tahay madaxweynuhu hadduu jabo qarankii baa jabe wey ad ka miisaan weyn tahay xisbiyada mucaaradka iyo guddoomiyeyaashooda haysberber ordina inta aad xilka hayso nin kastoo reer somalilan nin mucaarad iyo nin muxaafidaba madaxaad u saaranta laakiin madaxweyne talada ha ahaato mid aad uga fiirsatay marka aad ku dhaqaaqayso ayaan la cabdullaahi jaamac telefishinka caalamiga CBA TV magaalada Burco.